Roobab saacado da'ayay ayaa saameyn ku yeeshay kumanaan qoys oo barakacayaal iyo danyar isugu jira oo ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaal xaafadaha Muqdisho. Meelaha dhibaatooyinka ay ka jiraan waxaa ka mid ah xerada barakacayaasha Warta Siigaale oo ku taala degmada Hodan. Xalay dadka seexday ee xerada ku sugan waa ay yaraayeen maadaama roobka oo da'ayay iyo warta oo buux dhaaftay ay sababtay in biyuhu ay galaan guryaha cooshadaha ah ee dadku ay gabaadsanayeen. Dadka xalay guryahooda aan seexan waxaa ka mid ah carruur iyo waayeello oo meelo fogfog looga kaxeeyay guryahooda maadaama ay soo rogtay wartu biyo fara badan oo galay guryahooda. Aniga meeshan aan xalay bariyay guriga waan ka soo baxay marka ilmihii la xaafadaan u diray annaga gobolka Banaadir wax noo qabanay daraadna markay biyuhu noo soo galeen waan soo kor istaagay wax noo qaba mala kaamkana waad aragtay meelaan kala fariisan mala dadka waad arkaysaa hadda ilmaha 10 qof halka ku jirta Cali Cabdi Sabri waxa uu ka cabsi qabaa in biyaha ay galaan gurigiisa maadaama reerihii deriskiisa ahaa ay biyuhu ka saareen guryahooda. Xaafadaha la deriska ah Cali waa ay go'doomeen biyuhuna waxa ay dhulka ka saramareen 1 mitir. degan Siigaale hodan dadka degan aad bay u dhib qabaan biyahaas marka waa raxmad Ilaahay raxmadaas Ilaahay baan ugu shukriyeynaa saate yani waxaan rabnaa wartaasi wax looga qaban lahaa in falkeed la qabto shakhsi ahaan saameyn inta ay kugu yeelatay waxay ku yeelatay aniga anoo sigtin xal ku jira oo halkan biyuhu iga soo galeen xaggan iga soo galeen baa booydo gobolka booydo soo diray booydahaas markay jiideen waan seexday awal hore maan arkin booydo noo yimaada hal koor maan arag booyda roobka daay jiida maan arag hal koor laakiin hal waan arag gurigaaga biyaha soo galeen guriga biyaha la soo galtay laakiin hal soo ma gelin laakiin waxyar markay sigeen booydaha yimid waa laabteen biyihii marka xaafadaha ugu hareersan oo ku jiraan biyo hadda kuwan ugu hareersan oo ku jiraan leenkaas. Marka roob uu Muqdisho ka da'o waxa ay saameynta ugu badan ku yeelataa barakacayaasha xeradan oo kale ku jira. Dowladdu dhowr jeer ayay sheegtay inay baahiyaha dadka barakacayaasha wax ka qabanayso. Cabdi Maxamuud Xiiri ayaa sheegay dhowr booyadood oo biyaha ka bixiyay warta xalay in ay yareysay saameynta waxa uuna fariin u diray maamulka degmada Hodan iyo kan gobolka Banaadir. sababtoo ah hooyada badan waxa la keenay halkan biyaha way naaqusiyeen markii kullee wartu intii hore ay ku joogtaa markii dabo roobku daay booyada badan baa yimid oo biyihii ka nusqaamiyay inta hadda arkayseen ba waa aragtay xaafadii oo dhan ba waa laga soo cararay hadda aniga xalay waxay la seexatay dhowr iyo 10 qof dad gaaray qolku waana deeqi waa dadkii kalena meel kale ay maaragtay aadeen marka xaafadda waxa ku dhaqan ugu yaraan 7,800 oo qof qoys ahaan markii la yiraahdo waa 1,000 iyo maaragtay 200 iyo 300 dadkii marka qof walbaaba meesha uu carari karo uu carari marka dadka waa in lala soo gaaraa gurmad degdeg ah haday noqon lahayd raashin haday noqon lahayd marakaneeco meesha cudurro iyo bakteeriyana way ku jiraan oo dad baaba ka faa'iideysto saan oo kale markay noqoto waxay ku soo shubaan irbadaha iyo qashinka iyo waxyaabaha maaragtay nadaafadda u daran marka waa in lala soo gaaraa dadka maaragtay xoogaa yaro marakaneecooyina iyo maaragtay xagga caafimaadka dawooyin waa in dibadujin hadii loo hori karo ilaa iyaga dadka nimatalo maamulkii gobolka ama heer saameynta dhibaatooyinka dadka barakacayaasha ah ee Muqdisho ayaa xoogeysta marka roobab ay ka da'aan magaalada iyadoona badankoodu aysan haysan hoy iyo meelo ay kaga gabaadsadaan roobabka ka da'a magaalada Muqdisho.